Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo aan halkan kaga soo gudbino mar waliba hadii Ilaahay idmo muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa caabuq ama xanuun ku dhaca qanjirada xubinta taranka ee dumarka lubricationka ama qoyaanka u sameeya si xubinta taranka ee dumarka aysan u qalalin ama aysan u dilaacin qanjirada waxa lagu magacaabaa Bartholin glandis waxay ku yaalaan labada dhinac ee faruuryaha xubinta taranka ee dumarka xanuunka ku dhaca waxa lagu magacaabaa Bartholin cyst waxa uu dhacaa xanuunka kadib markii qanjirku uu soo sameeyo ama qanjiradu ay soo sameeyaan dheecaanka ay ku qoy lahaayeen xubinta taranka ee dumarka oo ay ka xiranto duleelkii ay soo marsiin lahaayeen kadibna ay ku aruuraan dareeraha duleelkii ay soo mari lahaayeen oo ay ka gudbi waayaan marka ugu horeysa oo ay gabadhu isku arki karto waa xilliga ay u fadhiso istijada oo ay taabato meel bararan oo aan xanuun badan lahayn oo ku taala labadeeda furuurood qayb kamid ah ee xubinta taranka caabuqa waqti kadib hadii aan la daweynin oo sii darsadaa oo waxa meeshaas ku abuurma ama ku aruura bakteeriyada noocyada lagu kala qaado taranka ama galmada ee lagu keena xanuunada lagu magacaabo sexual transmitted diseases bakteeriyadaas oo kuwa ugu caansan ay kamid yihiin gonorrhea iyo E. coli calaamadaha kale ee gabadhu la dirsi karto waxa kamid ah waqti kadib xanuunku hadii uu sii darsado meeshu aad ay u barartaa xanuun waa ay keentaa malax iyo qoyaan ay sidoo kale keentaa xilliga ay socoto gabadhu xanuun ay dareentaa oo socodka ayay dhibsataa sidoo kale qandho iyo xanuuno kale sida xilliga taranka ama galmada oo kale ayay dareentaa waxa lagu xaqiijin karaa xanuunkan in gabadhu ay u tagto dhakhtarka isla markaana dhakhtarku uu exam ama eegis uu ku sameeyo si uu garto inuu yahay cudurkaasi Bartholin cyst marka dhakhtarku uu garto xanuunku inuu yahay Bartholin cyst waxa la sameyn karaa in dhacaan laga qaado xubinta taranka ee caabuqu uu ka jiro si loo ogaado bakteeriyada nooceeda ku aruuray halka si loogu helo dawadii ku habooneed sidoo kale waxa laga qaadaa biopsy hadii laga cabsi qabo cudurrada qaar kood oo meesha ku dhici kara inay qayb ka yihiin daweynta cudurkan way kala duwan tahay xilli hore hadii la garto cudurka gabadhu waxay ku meeran kartaa biyo diiran oo ay dhaxgali kartaa sidaana xanuunku ku yaraan kara sidoo kale waxa ay isticmaali kartaa noocyada kala duwan ee dawooyinka loogu talagalay bakteeriyada si looga hortago faafida xanuunka hadii meeshu barar iyo dhacaan ay keento isla markaana ay dilaacdo xanuunna ay ku hayso gabadha waxa loo sameyn karaa incision ama qalin fudud si meesha looga saaro unugyada dhintay bakteeriyada meesha ku aruurtana looga nadiifiyo si wanaagsan looga nadiifiyo meesha oo u caafimaado gabadha waad mahadsantiin